gabadhan kale microphone-ka soo sii su'aashaada haddii kale haye su'aashaada waa mahadsantihiin waan salaamayaa wasiirada iyo xildhibaanada bahda Universal TV-na waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin barnaamijka quruxda badan aad noo qabateen waxaan rabaa haddaan fursad u helo inaan hal su'aalan weydiiyo labada wasiir ee meesha jooga ee dawladda Soomaaliya ka tirsan halna aan ku baraarujiyo labada xildhibaan meesha jooga oo maxaan ku raday mushinka wada labada wasiir waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane wasiir mudane madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta lama dooran waxaan ka hadlayaa arinta South West ka taagan oo ka bilaabatay mushinkan inuu yimaado kama baxayo mawduuca waxaan rabaa arinta South West inaan weydiiyo mudane wasiir madaxweynaha maanta lama dooran oo Farmaajo waxaan aaminsanahay ugu yaraan 2 sano uu dhameystay magaalada Baydhabo maanta doorasho ka taagan ka hor intaysan doorashada ka taagnayn madaxweynaha ka jiray oo maamulayay meesha madaxweyne ka ahaa wadada u dhaxaysa magaalada Baydhabo iyo magaalada Muqdisho waxa ka jirta dhibaato aad u fara badan markii loo fiirsho amniga ma jirto maanta hooyo dhibaataysan meel ay soo marayso waa naqaanaa dhaqaalaha ka jira koonfur galbeed meesha uu marayo dadkeedii aad bay u liitaan oo ma haystaan dad aqoon ku filanna ma ahan dad dhaqaale ku filan ka soo galay deegaankana ma ahan ma awoodaan inay diyaarad iska bixiyaan $100 shakhsiga dawladda wuu awoodaa laakiin ma awoodo shakhsiga shacabka iyo hooyada fooladaysa isbitaalka daawo looga waa inay ka hesho Muqdisho rabtaa ma awoodo $100 waxaan rabaa Farmaajo maanta markii la yiri doorasho dhacaysa lacagta bilyamaadka oo meesha ku bixinayo koonfur galbeed ee shakhsi inuu geystay ciidanna meesha geeyay oo rabo inuu shakhsigaas soo saarto ee shacabka dareenkiisana oo caburinayo shalay wuu joogay 2 sano wadadan xirneed dadkayga dhibaataysanayeen gaariyada shacabka raashinka looga wada 40 maalin jidka ku xirnaayeen Farmaajo wuu u jeeday lacagtaasna way tiilay wuxuu awood u lahaa inuu ku bixiyo shacabkaas dhibaataysan wadadaas ay ka xiran tahay gudaha magaaladana amni fiican aysan ku haysan su'aasha waxaan weydiinayaa wasiirada waxaan rabaa labada xildhibaan inaan ku bogaadiyo maanta qofkii hadlaawo haddii loo aaminsan yahay inuu yahay qof imaarad lacag ka qaatay iyo qof mucaarada waxaan leeyahay waxaad marteen wada sax ah oo aaminsanahay maanta Farmaajo waxaan ka aaminsanayn inuu yahay qofkii Soomaaliya bedeli lahaa dhibaatada ku soo jirtay intaas oo sano naga soo saari lahaa laakiin waxaan aaminsanahay meelo badan markaan ka fiirinay inuu xaaladda ay ka sii darayso waxaan idinku bogaadinayaa mooshinka aad wadiin iyo meesha hadda aad ka wadiinayso waana maasantiin aada u maasantahay waxaan runtii aad ula xanuunsaday runtii aadna ula qeylooday walaashay Najma Cabdullaahi aadan hadalka ay soo jeedisay runtii duruuftaas waana runtii duruuf aad u adag in 65 cisho 45 cisho wadada ay ku sii jiraan gaadiidka u socda ay adag tahayna qof ma garanaysa xanuunsan ama dhibaataysan inuu ku soo noqdo waxaa kaloo xogogaal u ah maciishada raashinka waxyaabaha qutudruuriga oo kale sicirka uu ka jooga xamar rabulaabkiisa uu ka jooga Baydhabo waa runtii duruufo aad u jira dadka dhaqaalahoodana waa garan karnaa waa runtii aadan ula xanuunsaday waana ka xumahay laakiin waxa ayaan daraa in xoola ku filan in lagu xoreeyo wadadaas ama lagu daryeelo dadkaas lagu bixinayo si aan munaasab ahayn waliba lagu dilayo oo hadda tii ugu dambeysay ee dhibaato runtii aad u xoog badan ka dhacday waxa kaloon runtii aqbalay ayidani horana ugu taagnaa dhiirigelinta aynu ku dhiirigelisay mooshinka sii wadno waa sii wadi doonaa